soo dhawaada daawadayaal waxaan rabaa inaan halkan kula wadaago xogii ugu dambeeyay yaa ka dambeeya dagaal beeleedyada ka socda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowlad goboleedka Galmudug. Muxuu yahay shirka ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ee abaabushay kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. Shirkaasina maxaa looga hadlay? Xogtaasi ayaan rabaa inaan halkan kula wadaago daawadayaal muuqaalka share gareeya meel fogna gaarsiiya gaar ahaan shacabka reer Galmudug iyo reer Hirshabelle muuqaalkan ha sii share gareeyaan faham buuxana ha ka qaataan dhagarta ay maleegeen kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. aan ku bilaabay xogta aan helnay waxa ay sheegaysaa kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab markii ay u adkeysan waayeen dagaalkii halganka ay dadka deegaanka hormuudka u yihiin waxa ay sameeyeen tactico ka duwan tacticadii lagu yaqaanay waxayna gobolka Shabeellada Hoose ku qabteen shir looga hadlayay sidee la isugu diri karaa beelaha walaalaha ah ee dega gobolada Hiiraan, Galgaduud, Mudug iyo Shabeellada Dhexe. dadkaasi oo ku taqaaneen la dagaalanka kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyana halkaasi ay ka socdeen dagaalo lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. waxa ay kooxdii soo maleegtay ay halkaasi shirkaasi dad ganacsato ah oo hayb ahaanna ka soo jeeda Hirshabelle iyo Galmudug ay u soo dhiibeen inay isku diraan beelaha walaalaha ah ee dega dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. dhaqaale fara badan ayay soo bixiyeen kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab oo lagu soo qaatay sida la isugu diri lahaa beelahan walaalaha ah. waad aragteen saacadihii ugu dambeeyay dhacdooyinka ka dhacay qaybo kamid ah dowlad goboleedka Galmudug. waxaa la isku diray beelo walaalo ah halkaasi ayay isku dileen waana dabin laga soo maleegay dhanka kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. waraadii aatiin shacabkii reer Galmudug in cadowgiina koobaad oo yaa kooxda khawaarijta waad u midaysnaydeen hase ahaatee adinkiiba isku laabtay kooxdii khawaarijtaana ka shaqaysay dadnaan ogeyn iyo hadii kale tab. Al-Shabaab waxa ay sameeyeen shirkaasi ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose in laga shaqeeyo in la isku diro beelaha walaalaha ah kadibna halkaasi dagaalkii iyo culayskii saarnaa kooxda khawaarijta oo ka weecdo. waad ogeydeen gobolka Mudug waxa ay ka sameeyeen beelo walaalaha ay isku direen si dagaalka ka socdo gobolka Mudug loo xagal daaciyo. Galgaduud waad maqasheen xalay iyo shalay wixii ka dhacaba waa dhacdooyin argagax leh. dadkii walaalaha ahaa ee halka cadow lahaa ayaa iyagii cadow la iskaga dhigay asiis dilayaan. ma ahan fikir ka dhex yimid dadkaasi walaalaha ah ee waa fikir ka yimid kooxdii khawaarijta argagixisada Al-Shabaab dad ay adeegsanayso. wareer Galmudug iyo reer Hirshabelle waxaa la inka rabaa inaad faham buuxa ka qaadataan kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab dadka ay adeegsanayso ee maleegaya inay isku dilaan dadka beelaha walaalaha ah. haddii aad moodaan in dakanadan ay tahay mid soo jireena war dakana soo jireena haday tahay waa laga gudbaa xaala laga qaatay waa laga heshiiyey dad walaalaha la ahaa gacanta la isgeliyay waa la isla noolaa. maxaa hadda soo cusboonaysiiyey mid aan Allah iyo rasuul aqoon oo fikirkii kooxda khawaarijtana ku jiro isqarinayana ayaa waxa uu rabaa inuu ka dhex shaqeeyo dadka walaalaha ah ee ku sugan qaybo kamid ah gobolada Galgaduud, Mudug, Hiiraan, Shabeellada Dhexe in goboladaas dadka degan la isku diro. haddaba dadkaasi shirkaasi xasaasiga ah ee ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ee soo maleegeen kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab waxa uu ahaa shir qarsoonaa hase ahaatee markii dilalkii ay bilowdeen ayuu daaha ka qaadmay in shirkaasi dad ganacsato sheeganaya ay ka qayb galeen. markii ka qayb galeenna lagu soo siiyay kharashaad in ay isku diraan beelaha walaalaha ah ee dega gobolada Galgaduud, Mudug iyo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. haddii maanta cadowgii khawaarijta argagixisada Al-Shabaab ee iyaga kaliya lagu wajahnay maanta mid ay iyagii soo dirsadeen ayaa dhuusmareebna wax ku dilaya matabaanna wax ku dilaya gaalkacyana wax ku dilaya. war waxaan idin leeyahay walaalaheen Soomaaliyeed ee ku sugan goboladaasi aan soo sheegay waa in ay fahmaan in fikirkani uu yahay mid ka yimid kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu diro beelaha walaalaha ah ee shalay dirirtu iyo dhibku ka dhaxdhacay ee dega gobolka Galgaduud gaar ahaan beesha Cayr iyo beesha Saleebaan iyo Cayr waa dad lagu yaqaan la dagaalanka kooxda khawaarijta argagixisada Al-Shabaab
haddii maanta adinkii ugu muhiimsanaa dagaalka ee kooxdii khawaarijta in ka dhex kalluumaysato waa nasiib darro. war dagaal beeleed soo cusboonaaday haddii aad aragtaan waxaa lafdhabar u ah kooxdii khawaarijta argagixisada al-shabaab iyo koox kale oo qowleysata ah oo maalmihii ugu dambeeyaba ku dhex jiray shacabka. war anugu waxa aan samray maalintii aan arkay dad iska dhigaya inay shabaab la dirirayaan hubkii ciidankana iibsanaya, maalintaas ayaan shakiga aan ka qaaday ilaa hadda aan qabaa. midka hubka gadanayay ma kula tahay in uu daynayo inuu qandaraas ku soo qaato in beelihii walaalaha la isku diro? wax la yeeli karo iyo wax la qaadan karo ma aha waxa ka socda Galmudug iyo Hirshabeelle. war haddii aad guryo iska gubtaan oo adinka isdishaan cadowgii khawaarijtana oo meel gaar ah idin fadhiyo idin ugaarsanayo, maxaa idin eg dadkaygiiyo maxaa idin eg? war maanta waxa socda waxaa la rabaa in culummada iyo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka hortagaan dhagartan ay soo maleegeen kooxdii khawaarijta argagixisada al-shabaab ayna isku dirayaan dadkii beelaha walaalaha ahaa iyagoo adeegsanaya dad wax ma garata ah. war al-shabaab markii ay u adkeysan waayeen dagaalka dadka deegaanka ay kaga hortageen oo deegaano fara badanna ay uga qabsadeen ilaa haddana ay ku bacsanayaan, waxa ay la yimaadeen taatikadan ah in la isku diro beelaha si dagaalkoodu uu noqdo mid u wacda in beelihii iyagu isdilaan. haddii maanta aad ka shaqaysaan isku dirka beelahaasi waxaad noqonaysaa mid garab siinaya kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab. mid kale rabaa inaan ka iraahdo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. arrintan aad ka aaminsantihiin waxaan la hadlay dad cuqaal ah qaybaha kala duwan ee bulshada, ilaa hadda waxaa la ii sheegay in goobihii beelahaasi walaalaha ay isku hor fadhiyaan aan la gaarin marka laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo loo diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasina ka wada howlgallo. Galmudug ilaa hadda madaxweynuhuna kama hadlin, dowladda federaalka Soomaaliyana kama aysan hadlin oo ciidamada uma aysan dirin in dadka dhagartaasi ka shaqeynaya laga hortago. dowladdu haddii aysan ka hortagin dhagartaasi laga shaqeeyay ay ka soo shaqeeyeen kooxdii khawaarijta argagixisada al-shabaab iyo dad caada qaatayaal ah, waxa ay noqonaysaa mid aan hadhow la xakameyn karin. waa in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay ogaadaan in kooxdii khawaarijta argagixisada al-shabaab taatikadaasi ay la timid dadkii shacabka ay isku dirayso, dowladana inay ka hortagto arrintaasi ayaa loo baahan yahay. dadka ka qayb galaya shirarka khawaarijta imaanayana deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka Soomaaliya ee shacabka halkaas ku sugnaana isku diray waa inay dowladda go'aan cad ka qaadataa. war shabaab arxan malahan qofkii u taga ee shir la soo galana arxan kale malahan waa in la dilaa. isagii aba hadeertaan meeshii la rabo in laga qabto ama la dilo ama la maxkamadeeyo isagii aba dadka isku diray. beeliya isqabsaday meel walba mid baa lagu dilayaa, meel walba qof baa dhinta lagu leeyahay, reer hebel baa dilaa lagu leeyahay. war reer hebel dilaa dad maqash wax kale ma ah. adeer khawaarijtii idin soo dhex gashay ee laga hortago. mideeda kale tana beelahaas walaalaha ah ee hadeertaan isdilayeen waxaan ugu baaqayaa war gogol nabadeed iskugu taga. midka caada qaataha ee qandaraaska ku soo qaatay ee raba isku dirkiina inuu ka shaqeeyana ka hortaga. walaalayaal dhiigiinu maanta ma ahan inaad iska daadisaan. dhiigga la rabo in la daadiyo waa dhiigga kooxda khawaarijta. dhiigga la rabo in la daadiyo waa dhiigga kooxda khawaarijta. dhiigga maanta wiilka Soomaaliyeed ee ku nool Galmudug in la daadiyo ee qaab qabiil loo daadiyo waa baadil. diiniyana kuma banaano, aqliyana kuma banaano. in laga hortagana waa loo baahan yahay. dhammaan cuqaasha iyo waxgaradka ku sugan deegaanada Galmudugna waxa loo baahan yahay inay ka hortagaan dhagartaasi ay ka soo shaqeeyeen kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab. haddii maanta al-shabaab ay ku guuleystaan inay beelbeel isku kindiraan bari midkiina haldoorkaana siday u beegsanayeen ka shaqeynayaan. sababtoo ah hadda wajigaan hadda u suurta galo wax badan oo aad ka shalay doontiin ayaad kala kulmaysiin kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab. sida aad u fahanteen inaad iskaga xoreysaan waa inaad haddana u fahantaan inaad kaga hortagtaan dhagartan ay soo maleegayaan kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab. haddii dowladdu xitaa ay faham buuxa ka qaadan weydo, shacabka reer Galmudug waa shacab Soomaaliyeed, waa shacab caqiidiyan dhisan, waa shacab qalbi wanaagsan.
in ay fahmaan arrintaas oo ay ka hortagaan ayaan u rajaynayaa. waana ogahay in dad faham buuxa leh ay joogaan deegaankaasi ayna og yihiin in kooxda argagixisada al-shabaab ee waxaan ka soo shaqeyso. waxaa laynkaga baahan yahay walaalayaal in maanta waxa dhacay aysan mar dambe u dhicin, kii ka shaqeeyana lagu tago, kan dhiigga geystana lasoo qabto. markaasay arrintu isfurfuraysaa waana la ogaa doonaa. xogtaas ayaan rabay inaan halkaa kula wadaago iyo waxyaabaha looga soo shaqeeyay gobolka Shabeellada Hoose shirki ka dhacay iyo dadkii ganacsatada sheeganayay ee shirkaasi ka qayb galay. waxa ay soo qaadeen waa waxa hadda ka socda Galmudug oo ah in beelihii la isku diro. waa in shacabka reer Galmudug ay u istaagaan inay ka hortagaan arrintaas. arrintaas ha laga hortago. arrintaasi ma wanaagsano, mana ahan mid lagu aayi doono haddii ay sii socoto. waxaa la rabaa in dadkaasi beelaha walaalaha la dhex galo, dadka ka shaqeeyay arrintaasna la soo qabto. waa la ogaan karaa, waana la ogyahay dadkaasi waxa ay ka shaqeeyeen iyo waxa uu yahay iyo sababaha keenay in dagaalkaani oo bilowdo in la iska soo warsado. arrintaasaa muhiim ah. intaas ayaan rabay inaan kugu soo koobo daawadayaal muuqaalkani muuqaalka xigay intaan dib ugu kulmi doonana waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.